بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا channel كينا Somali Technology Solution إن شاء الله ما أنتم وحنا كهذلنا بلانك يعني نقاضي إن كجشي كنا Linux. What is the Linux محيطة هاي برشة بلوا أو لوجو تلاقي ضد كجعل إن برتان Linux كا sida casharkii kan ka soo horeeyaan uga soo sheekeynay waxaan Linux waa laga marmaan in la barto trainingkiisa iyo qaabka operating systemkaas u shaqeeyo command lineska iyo sida loo isticmaalo in la barto qofka raba inuu noqdo inuu hacker iyo waxa ka shaqeeyo marka insha Allah maanta waxaan ku eegaynaa qayb presentation iyo command linesku siday u eegyihiin casharkan waxa loogu talagalay ardayda jecel inay bartaan Linuxka maaha cashar bilowa waa cashar u dhaxeeya meel dhexe amba intermediate ah marka haddii aad fahmi weydo casharada kale la soco maalintii ka horeysay saan hore usoo sheegay waxaan kaga soo hadlanay qaybaha overview iyo siday u kala duwan Linuxku qaybta waxaan ku eegi doonaa bilowga command lineska iyo qaabku u shaqeeyo waa maxay Linux halkan waxaan soo dhigay muxuu yahay Linux muxuu qabtaa asal ahaan Linux wuxuu ka yimid wax loo yaqaano Unix ayuu ka yimid marka computer hardware ayuu ka shaqeysiyaa sida processorka so waxaad arki doontiin command lines weeyi la isticmaalo so Linux operating system waa software free oo loo isticmaalo computerada lagu isticmaalo qaybahaas ayaan eegi doonaa Linux saan hore usoo sheegnay asal ahaan waxay ka timiday Unix ayaa hooyadiya kana waa childkii Linux marka waa open software waa software free oo wax lagu programmeeyo waxay kala samaysaa computeradana waa lagu shubaa Unix asal ahaantii waxay ku soo baxday in lagu programmeeyo waxyaalaha loo yaqaano serverada waaweyn ayaa loo isticmaali jiray bariyii hore 91kii wixii ka horeeyay Linux marka waxa ay ka dhalatay oo dhalay Unix ayay ka soo baxday marka Linuxku waxa weeye waa community of open source and operating system free Linuxku sida darteed ayuu marka caan u noqday software kasta oo la sameeyo oo device ku jira waxa lagu sameeyo Linux okay so that's waa gundinga amba waxyaalaha ugu muhiimsan ee la rabo in Linuxka loo isticmaalo si operating system u sameeyo operating system Linux qaybo kala duwan oo fara badan ayuu leeyahay hadda example meeshan uga jeedin waa Fedora sanayaantii hore u soo aragnay marka qaybo kala duwan oo aad iyo aad u fara badan ayuu leeyahay Linux distribution amba iyo installationkiisa inaad wax ka fahamtid ayaa loo baahan yahay Linux waxaan soo sheegnay overview-ga ayaantaan ka hadlanay inay jiraan noocyo aad iyo aad u tiro badan so waxaan ka soo hadalnay Ubuntu oo kale Red Hat ayaan soo aragnay waxaan kaloo soo aragnay OpenSUSE ayaan soo aragnay Fedora waan soo aragnay waxaan kaloo soo aragnay qaar kale Debian ayaan soo aragnay Kali ayaan soo aragnay marka aad iyo aad ayay u tiro badan qaar kalena way jiraan oo halkaad uga jeedin Yellow Dog waxa jirta Ubuntu FreeBSD adu magacyo kala duwan oo Linux oo fara badan distribution-kooda marka way kala duwan yihiin marka waa qaybaha sameeya programyada okay installation-ka markaasi waxa loo isticmaalaa in web server lagu sameeyo web server computer meel yaala oo web server iyo in network devices lagu shubo labadaba waa loo isticmaalaa so Linux built for specific purpose amba wax u gaar ah ayaa loo isticmaalaa okay installation-ka marka la sameynayo waxaad u baahan tahay inaad USB ku shubtid intaad soo downloadayso USB aad bootable ka dhigtid iyo inaad DVD aad ku shubtid iyo in iyagoo ISO aad isticmaashid saddexda qayboodba waa lagu install gareeyaa okay Windows iyo Linux mid ka fiican waa su'aal la isweydiin karo
window iyo linux midkeed qaadan lahayd? kolley run ahaantii waa kala duwan yihiin linux iyo windows. Window operating system saad la socotiin waxay isticmaashaa wax la yidhaha graphic interface ayay isticmaashaa, inkastoo beriyihii hore DOS la isticmaali jiray oo window 3 iyo waxaas ay jirayeen. linux markaas standardka qaabka ay u samaysan tahay wuu ka duwan yahay qaabka ay u samaysan tahay windowda. okay, haddaan fiirino si u kala duwan yihiin windowska iyo linux. folderkoogu sidan ayuu u samaysan structureka qaabku u dhisan yahay. / ayaad halkan uga jeediin. halkan waxaad ujeediin bin folder ah, bin la yidhaahdo boot, dev, etc, home, library, media, noocyadaas faraha badan ayay leedahay windowda. so markaad aragtiin waxaad tegaysiin filekan file system, kadibna home ayaa kusoo baxaya oo small lettera iyo home oo capitala, macno ayay sameynaysaa. marka qaabkan ayay u dhisan tahay. halkan waxaad uga jeedin media, wax kasta oo linuxka ah file ayaa loo yaqaana. okay, summary haddaan soo koobno waxaan halkan ku baranay in 3 qaybood user in loo sameeyo. regular user iyo leedahay, waxay kaloo leedahay root user wax la yidhaha oo kaasoo super usera oo haysta all the right admin privilege. mid service ayaa la sameyn karaa. there is no drive in linux unlike in windows. linux male drives. waxaan kaloo baran doonaa, waxaan kaloo isbarbar dhiganaa file managementiga siday u kala duwan linuxka. linuxku waxay isticmaasha wax la yidhaahdo command line interface amba CLI, terminalna loo yaqaano command line interface. CLI haddaad maqashid waa command line interface baa laga soo gaabsaday, terminalna waa loo yaqaana. marka qaabkan ayuu egyahay, waa meel madow amba caddaan whatever is ood adigu commands ku qoraysid ood u sheegaysid waxay sameynayso. windowdu waxay leedahay wax la yidhaahdo graphical user interface amba GUI loo soo gaabiyo. so this is a window 8 ayaa filaya inay tahay. so halkan waxaad uga jeeday in graphic interface aad click dooranaysid adigu mousetaada. linuxu qaar badan waxay leeyihiin graphic interface waa soo download garaysan kartaa, laakiin waa extra application. xagga degdega marka la eego linux ayaa ka dhaqso badan, sababtoo ah linux waxay isticmaalaysaa command line interface. so waa flexible, waad bedeli kartaa, waana ka dhaqso badanta. taas waa markaa loo doorbidaa linuxka. okay, graphic interface amba GUI marka CLI la barbar dhigo saas ayaa loo dooranayaa CLI, sababtoo ah way ka dhaqso badan tahay, waana wax flexible. hadhow markaan practicalka sameynana ayaad arki doontiin hadduu ilaadha insha allah. haddii uu qofku taabto control plus alt plus t terminalka ayay kuu furaysaa. so markaan practicalka sameynana ayaad arki doontiin. name user computer ayaa laga sii geli karaa. waxay kaloo leedahay directory la rabo marka la joogo aad joogtid inaad eegtid waxaad isticmaalaysaa saan hore usoo aragnay ambaan arki doono pwd ayaad ku qoraysaa, kadibna wuxuu kuu sheegay navigationka meeshaad joogtid. okay, to navigate a tape of cd markaad doonaysa change directoryga markaad rabtid inaad isticmaashid waxaad isticmaalaysaa cd. okay, cd hyphen haddaad tagtid wuxuu kugu celayaa home directorygii ayuu kugu celinaya. linux waxay isticmaashayadu use a root, windows use c2.backslash ay isticmaasha commandkeeda. so waxyaalahaas ayaan tijaabin doonaa iyagana. sidee navigation aad u samayn doontaa?
navigate through a multiple directory cd ayaad isticmaalaysaa kadibna folderkii aad rabtay ayaad ku qoraysaa halkan cd cpu haddaad rabtid for example single directory haddaad rabtid inaad ku noqotid cd ayaad qoraysaa laba dotna waad raacinaysaa space laakiin waa inuu udhexeeyo kamaanadani waa kamaanada basic ah ee la rabo linuxka inaad baratid very important waxa weeye waxaynu odhan lahaa node ka qaata kuwan ayaan isticmaalaya markaan wax sameynayo so linux waxay isticmaashaa ls waxayna tustaa amba display file in a current directory waxay ku tusaysaa failalka hadda diyaarka ah ls space -r oo capital haddaad aragtid amba display subdirectory ayay ku tusaysaa kuwa hoose ee la qariyay ls-al haddaad aragtid oo ayaa la mid iyaduna waa same situation ayay isku mid yihiin ls-a haddaan qoro display hidden files kuwa qarsoon ayay ku tusaysaa cat haddaad isticmaasho cat command use for display ayuu ku tusayaa waxaa kaloo isticmaalaa copy in la copyiyo combine laba file la isku dhex daro create a text files in text file la sameeyo iyo wixii lamida for example waxaad qoraysaa cat calaamada ka weyn kadibna fileka magaciisa ayaad qoraysaa kadibna uu samaysmaya si aad ugu noqotid meeshii terminalka control iyo waxaad taabanaysaa iyo d in a keyboard waxaa kalood samayn kartaa to combine a two files si aad laba files kugu dartid waxaad isticmaalaysaa kelmadii aan soo baranay oo cat ah iyo fileka magaciisa calaamadan ayaad ku xijisiinaysaa filekii la rabay new filekii rabtay inaad ku bedeshid ayaad isticmaalaysaa waxaa kalood isticmaalaysaa haddii aad rabtid file inaad delete garaysid rm baad isticmaalaysaa file name for delete haddaad file aad rabtid in la delete laakiin waa far yar inuu ahaado file haddaad inaad rabtid in move garaysid waxaad isticmaalaysaa wax la yidhaahdo mv file nameka dooranaysaa then kadibna waxaad dooranaysaa destination meeshaad rabtid inaad dhigtid sudo waa inaad fahamtid sudo waa very important command very important weeyi commandkan give a super user privilege and ask your password commandkan wuxuu ku siinayaa waxa loo yaqaano privilege amba awood ayuu siinayaa userka kadibna wuxuu ku weydiinayaa password mkdir haddaad isticmaasho waa directory markaa rabtid folder amba directory inaad samayso creating directory mdir waxaa kaloo loo isticmaalaa for example haddaad create directory aad rabtid inaad location kale rabtid inaad ku save garaysid mdr waxaa kaloo loo isticmaalaa inaad samaysid hal mar ayaad ku samayn kartaa foldero fara badan okay ramdr wuxuu sameynayaa remove a directory mid ayuu ka qaadayaa meesha oo ka tuuraya move waxaa kaloo loo isticmaalaa isaga laftiisa in lagu bedelo in magaca la bedelo haddaad rabtid magaca folder fileka inaad rabtid inaad bedeshid waad isticmaali kartaa man saan hore usoo sheegay waa command similar help ah so this is a history waxaa kaloo isticmaalata command kale la yidhaahdo history all commandadii aad gelisay oo dhan ayaa la fiirin karaa okay so display the all command you run again clear command ayaa jira command kale la yidhaha clear commandkani wuxuu sameynayaa remove all files ayuu ka tuuraya macnaha terminalka filalka aad ku qorto dhan ayuu meesha ka move garaynaya command kale oo waxaa jira la yidhaahdo copy from text from source so waxaa isticmaali karaa control plus c in a keyboard haddaad basic doonaysa inaad isticmaashid waxaad isticmaalaysaa control plus shift plus v linux files waxay kala sameysaa permissions waanu iman doonaa kuwaasi waxay noqon doonaa casharadana soo socda qaybta practicalka ayaanu gelaynaa aad iyo aad
bal u fiiriya. Linux folders waxaan eeganaa folderka music and pictures public iyo example filealka. markaad ku dhufanaysaa meeshaasi files ay ku qoran tahay. markaad files ku dhufatid waan iska xidhi kartaa. waan iska xidhnay. hadda waxaan tegaynaa meeshan Ubuntu Software Center. Ubuntu Software Center markaad furtid wax yar ayaad sugaysaa, way wareegaysaa wax yar. markay noo soo baxdo waxayna tusaysaa Ubuntu Software Center waa meesha softwareka laga soo download gareeyo. saa ujeediin wuxuu inoo soo collected informationkii ayuu inoo soo ururinayaa. hadda saad ujeediin halkan waa meesha ugu safesan ee Ubuntu marka file la rabo in lasoo download gareeyo lagaga shubo. halkan keymail baad uga jeedaa iyo qaybo kale. waxaa kalood ku qori kartaa message search ay ku qoran tahay ayaad ku qori kartaa. VLC ayaan hadda eeganaa. VLC media player ayaad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufatid already one install in is remove waa uninstall waa ka move garee. haddaad more information aad sii eegtid VLC wuxuu yahay waa projecti akhriya videoyada iyo musiga labadaba. install meesha ku qoran tahay haddaad ku dhufatid waxaa kuusoo baxaya programyada kugu install garaysan Ubuntu desktop. waan iska xidhanaa. hadda markaan xidhno kadib waxaan teganaa meeshaasi search terminalka ayaan u guda galanaa. si aad si fiican u fahantiin terminalka markaa si aad u guda gashid waxaad ku dhufanaysaa meeshaasaad click siinaysaa. kadib waxaa kuusoo baxaya sidan. kani waxaa loo yaqaanaa terminal ayaa loo yaqaanaa. haddaad ku qorti pwd wuxuu ku tusayaa meesha aad joogtid. home/cilmi waa magaca userka. haddaan ku qorno if config amba waxay u dhiganta ip config oo meeshaan rabno in ip addresskan ka fiirino in ip addressku configurationkiinu sax yahay. ETHO ayaa loo qeynaa. ETH1 waa interfaceyada uu leeyahay keligii kuwaasi. halkaas aad uga jeedeen inad address 192.168.0.19 weeyaan ip addresskeenu. waan iska xidhanaa. waxaan tegaynaa markaasi Firefox browser. Firefox browser wuu inoo furmay. markuu inoo furmay waxaan kasii tegaynaa waxaan ku qornaa ubuntu.com. ubuntu.com markaan tagno waxaan siinanaa enter ayaan leenahay. waxaynu tusayaa meeshaad rabtiin haddaad doonaysid inaad soo download garaysatid Ubuntu operating system amba Linux operating system. Ubuntu sida ogtihiin waxay kamid tahay Linux operating system mid kamid ah way. waxaad ku dhufanaysaa meesha ay download ku dhufan tahay waxaa kusoo bixi karaa Ubuntu desktop oo halkaasa waana soo download garaysan kartaa. hadda version ka socono waa 20.04 LTS. Ubuntu informationka haddaad rabtid informationka ayaad akhriyaysaa. Ubuntu server ayaa jira mid serverka loogu talagalay oo kaliya oo ah one of the most popular server la isticmaalo. kaloorkana loo isticmaalo data center iyadna waa free oo waad soo download garaysan kartaa. soo cadoosaa get Ubuntu iyo qaar kale ayuu leeyahay. marka labadaas ayaa ugu muhiimsan. halkaas ayaa laga soo download gareeyaa. waana free software wax lacag ood kala baxaysa ma jirto. waxaad ku bedeli kartaa Windows iyo Mac ayay ku bedelaysaa. waa barnaamij aad iyo aad u fiican. waxaan usii gudbanaa qaybaha kale aan fiirino. haddaan u kacno oon idhaahno meel maran desktop right click kadibna aan doorano file. fileka magaciisa haddaan magac u bixino for example commands baan u bixinaa kasoo qaad. filekaasi hadda waxaan ku sameynay graphic interface waxa loo yaqaano graphic interface ayaan ku sameynay.
so maadaama aan graphic interface ku samaynay waxaan ku qoranaa waxbaan iskaga qoranaa si aad ula socotiin. haddaan rabno markaa waxaan kaloon ku samayn karnaa inaga oo isticmaalna terminalka amba command line interface wax loo yaqaano CLI. sidaad u tegi lahayd adiga oon isticmaalin mouseta command line interface waxaad qoraysaa amba aad taabanaysaa control plus alt plus T kadibna wuxuu ku geynayaa terminal ayuu ku geynayaa in a keyboard. kan waan iska xidhnaa si aan si fiican u tijaabino. waxaan leenahay control plus alt plus T. okay, kaas waan iska xidhnay nima save karin. control plus alt plus T markaan taabanay halkan ayay noo soo baxday. sidana waan u furan karnaa. terminalku waa meesha wax laga bedelo amba lagu socsocdo amba wax laga sameeyo weeyaan. waa shortcut. why su-aashu waxay tahay sababtan terminal u isticmaalana in graphic interface u isticmaali weynay maxay tahay? sababtu waxa weeye terminalku waa ka dhaqso badan yahay marka hawl la qabanayo ku saabsan computerka ama barnaamij laga sameynayo. intaan graphic interface isticmaali lahayn waxaan isticmaalanaa terminal amba command line interface amba loo yaqaano CLI loo soo gaabsado. saad halkan u wada socotiin waxaan tijaabin doonaa faylalka inoogu jira. so waxaan baran doonaa ka ugu horeeya ee aan eegano meeshan joogno. waxaan ku qoranaa command la yidhaha pwd kadibna wuxuu ina tusayaa locationka aan joogno. haddii aan markaa kasii gudubno locationka aan joogno waad ujeedin waa home/cilmi. clear command kaloo clear la yidhaha jira CLEAR kadibna clearing ayaad sameynaysaa nadiif ayaad kaga dhigaysaa. kamano badan ayaa jira. cd / waxa isticmaalaa windowsta laakiin inagu waxaan isticmaalkaa mid kale oo ah cd / kadibna wuxuu ina geynayaa root kii ayuu ina geynayaa. waa iskaga baxanaa. waxaynu ku qoranaa command kale oo clear ah. waan iska clear garaynaa wixii oo dhan. waxaan isticmaalnaa command la yidhaahdo cd saad ujeedin waxaa loo yaqaanaa waa chain directory ayaa loo yaqaanaa. so waxaan kaga qornaa from the keyboard inaga oon isticmaalna wax loo yaqaano inagoo isticmaalayn graphic interface. haddii aan furno graphic interface oon tagno files oon sii tagno computers waa meesha faylalka au ku shaqeynayo linuxku ay yaalaan. waxaan kasii dooranay etc kadibna waxaan raadinaynaa meel network ayaan raadinaynaa. so waxaan ku qoranaa network kadibna waxay noo soo baxayaa network folder amba directory. so waxaad aqoon inaad u yeelatiin ood fahantiin loo baahan yahay directory waa linux folder na waa windows ba u taqaana. so halkii folderkii ayaan furay network interfacekii kadibna wuxuu tusayaa waa auto IP address ayuu haystaa saad ujeedin. xaggana waa subnet maskii xaggana waa network addresskii broadcastkii iyo wixii oo dhan ayuu ku tusaya configurationkii ayuu ku tusayaa. qaybahaasi waa qaybaha laga fiiriyo folderada ay ku shaqeyso linux amba ubuntu saad wada ogtihiin. haddii markaa aan tago terminalka
waxaan samayn karnaa inaan halkaa inagoo terminaalka joogno wax ku samayn karno ayaa inoo soo socota. saa darteed markaas waan iska xidhanaa terminaalka, kadibna waxaan tegaynaa meesha search ay ku qoran tahay. halkaasi waxaa meesha wax laga soo raadiya weeye kolba faylalka aad rabtid search oo kale. hadda waxaan fiirinay disk usage analysis. so wuxuuna tusayaa diskeen waa 19 intaan ka isticmaalnay ayuu ku tusayaa. okay, haddii aan dhinaca u move karayno oon terminaalkii ku noqono, waxay noo soo baxayaa in terminaalkii diyaar inoo yahay. waxaan sameynaynaa la soconnaa casharada kale ee soo socda terminaal inagoo isticmaali doona kamaano googo ah. aad ba mahadsan. waxaan baranaa kamaankii u horeeyay Linux-ka lagu eego listiga. so ls baan ku qoranaa, waxayna tusayaa listiga aan haysano. halkaa waxaad uga jeedaa desktop documenty folder aan sameeyan heeso u bixiyay downloading music. wuxuu ku tusaya all the files you have and pictures public and what is public and waxaa kaloo jirteen qaar kale templates test iyo wariyaa midaan u bixiyay. folderadaasoo dhan ayay ku tusaysaa kelmadda loo yaqaano list. so haddii aan graphic interface-ka tagno waad u jeediin folderadii aan kusoo aragnay terminaalka ayaad uga jeediin markaan tagnay desktop systemkiina. so hadda waxaan sameynaynaa oon tijaabinaynaa, waxaan isku dayaynaa inaan folder sameyno amba file aan sameyno oon ku sameyno desktopka for example ayaan tijaabin doonaa. so markaas si aan u sameyno filekaasi waxaan ku qoranaa ls baan leenahay. horta ls waa show the list, laakiin faylal ayaa qarsoon. haddii markaan raacino ls space hyphen r oo capitala r capitala waxaynu tusayaa faylal badan oo hidden files, faylalka qarsoon ayuuna tusayaa. so documenty faylal ayaa kusii dhex jira. so haddaan documenty furno waxaa ku jira t1 t2 t3 saad uga jeediin terminaalka. so saas ayuu markaa file baan ku dhex sameynaynaa meeshaasi folderka dhexdiisa. waxaan u bixinaynaa tijaabo for example, kadibna waxaan tegaynaa terminaalkii. 3 file ayaa ku jiray markii hore, t1 t2 t3 baa ku jiray. clear baan leenahay, waxaan leenahay clear again ls hyphen r oo capitala. kadibna waxayna tusayaan folder cusub kusoo darnay oo tijaabo aan u bixinay. saad u jeediin fileka waxaan rabnaa inaan iska delete garayno oo ka turno meesha. waxaan leenahay move to the trash. filekii already uu ku jiray halkaas. waxaan eeganaa filekii inuu ka baxay terminaalkii ayaan tagnay. waxaan ku qoranaa clear baan leenahay marka ugu horeysa, amba waxaan odhanaa filekii ayaan horta eeganaa folderadii meesha inoogu jiray. marka waxaan odhanaa 3 ayaa inoogu jira t1 t3 t1 t2 t3 intaas ayaa ku jirtay. waxaan ku qoranaa markaasi clear baan leenahay si aan space u helno. kadibna waxaan leenahay ls waa list space hyphen r oo capitala ayaan ku qoranaa. amba kaman kale waxaan isticmaalnaa ls hyphen a. isaguna wuxuu ku tusayaa hidden fileska qarsoon ee aan la arkayn. so dot ayaa laga horeysiiyaa kuwa hidden laga dhigayo. saad uga jeediin .config .cache
waxaa kaloo ujeediin filalkaasi lama arki karo. So ls hyphen markaan desktop tano uma jeedno folderadaasi. Very important ayuu u yahay. saa darteed markaa ls hyphen a oo small lettera ayaa lagu arkaa hidden fileska qaybta. markaasi aan u noqono mar labaad cut space ayaan baxanaa, kadibna waxaan taabanaa calaamadda ka weyn, kadibna wariyaa ayaan qoranaa. si markaa aada uga baxdid meeshan waxaad taabanaysaa keyboardka Ctrl D si aad terminalkaaga sax ugu noqotid. terminal D markaan taabanay amba price terminal Ctrl plus D takes you to the terminal in a keyboard. kaasina waa inoo qoray iyadoo Englisha. keyboardka ayay ku geynaysaa, keyboardka ayay kugu celinaysaa. saa darteed waa command la rabo inaad taqaanin. haddii kale waxoogaa waad yar wareeraysaa, sababtoo ah si aad uga baxdo ayaad garan waayeysaa. okay, cut ayaan mar kale isticmaalayaa. space baan baxayaa, waxaan ku qorayaa calaamadaasi somts.com ayaan ku qorayaa, kadibna waan sameeyey filekii. saad uga jeediin filekii waan sameeyey. so haddaad desktopka fiirisiin xagga koreysa somts.com waad ujeediin. waa very easy, efficient, waana degdeg. si dhaqso badan ayaad u sameyn kartaa fileka adigoo dhex jooga terminalka. terminalku saad la socotiin waxaan nidhi waa meel ka dhaqso badan sameynta. cut commandka cut ayaan isticmaalanaa. waxaan leenahay file ayaad ku qoraysaa. fileka magaciisa la idhaahdo wariyaa ayaad u geynaysaa file kaloo la idhaahdo somts.com. oo marka la rabo laba file in la isku dhex daro qoraalka ku jira, combine two files. kaasina waa loo isticmaalaa commandkaasi. laba file marka la rabo in informationka la isdhex geliyo saasaa la isticmaalaa. so cut wuxuu qabtaa cut, create files, display files iyo combine ayuu sameeyaa. inuu file sameeyo, inuu file ku tuso, iyo inaad file ka move garaysid meesha, inaad laba file isku dartid. so su-aasha kale waxay tahay how to create file. sideen file u sameeyaa aniga oo isticmaalaya commandka la idhaahdo waxa isticmaalaysa loo yaqaano. si aad u sameysid command waxa isticmaalaysa la idhaahdo rm wuxuu sameeyaa, wuxuu delete garayaa filalka. so hadda file aan jirin ayaan dhihi remove. so rm haddaad maqashid waa remove. rm waa remove. okay, filekii ma hayno, markaa file jiro oo la arki karo ayaan rabnaa inaan move garayno. haddii aad fiirisid filalka kor ku xusan, file kamida ayaan tuuranaa. fileka test ayaan tuuranaa. la socda saa waxa dhaca. filekii have been deleted, waa la delete garaya filekii ama meeshii baa laga saaray.
file kale ayaan sameynaa inagoo cat command isticmaalana. Space baad baxaysaa kadibna calaamadaas isticmaalaysaa kadibna waxaan u bixinaa test. Enter markaan taabno faylkii degdeg ayuu u imanayaa meesheenii homekii. rm oo ahayd delete amba move the file, tijaabo ayaan tuurnay imikana. So tijaabo oo halkaa inoogu muuqatay aad u jeedin inay ka baxday meeshii kuma jirto. Move files to inagoo fileka meel kale doonana inaan geyno. waxaan leenahay waxaan samayn karnaa amba aan ku samayn karnaa file ayaad meel ka qaadaysaa oo meel kale aad geyn kartaa. command ayaa la isticmaalaa. So commandkaasi isaga laftiisa waa inaan barano. So command not found. hadda waxaan ku qornay maaha command ee waxaan ku qoray qoraal caadiya si aad u fahantiin. So mv commands waa move command. So waxaad move garanaysaa fileka test kadibna destinationkii aad geyn lahayd ayaa dooranaysaa amba meeshii. So marka ugu horeysa move markaad qortay space baad baxaysaa, sourceka amba fileku meeshuu yaalla ayaa dooranaysaa. destination aan geynaysaana aan geynana waa document. So filekii waad arkaysa waan ka move garaynay oo waxaan geynay meesha loo yaqaano document. So filekii waad u jeedin si aan u proof garayno. So waxaan u baranaa waxa weeye si aan noogu dhibaato Linux inaan isticmaali karno, si aan u barano waxyaalaha hackinka iyo noocyadaas u shaqeeyaan. Okay, so filekii saad u jeedin mv ayaan space kadibna test kadibna destinationkii ayaan dooranay waad u jeedin halkaa geyn. Okay, qoraal ayaan iskaga dhex qorayaan leeyahay. kani waa kii aan soo qaaday amba filekii aan soo qaaday weeye. Okay, ma raba inaan xafido. haddaad doonto iska xafid waan leeyahay safe aan ku dhufanaya kadibna waan iska xidhayaa. kadibna terminalkii ayaan ku noqonayaa. terminalkii markaan ku noqdo waxaan ku qorayaa qoraal. waxaan leeyahay sida loo delete gareeyo. command kale waxaan baranaa sida loo delete gareeyo ah file sida loo tuuro ayaan ku baranaa. So hadda meeshii saa darteed markaa waxaa loo baahan yahay you can use this commandkaad isticmaalasa wuxuu noqonayaa markaasi commandka la isticmaalayo ayaan waxaan sameynaa ayaan ini tusi doonaa. markaas commandka la isticmaalayo ayaa noqonaya rm horaan soo isticmaalnay oo ahaa remove oo horaan soo tijaabinay. si aad mar kale uga bogatiin ayaa waxaan sameynaa mar labaad ayaan sameynayaa si aad si fiican u fahantid. casharkan haddii aad dhamaysatid waxaad noqonaysaa qof Linux master amba Linux si fiican u fahansan. So fileka waxaan tuuranaa somts.com ku qoran tahay. saa ujeedin hawada ayuu ka baxay. waan tuurnay filekii waan tuurnay. So filekii ma yaallo meesha. file kale ayaan sameynaa inagoo isticmaalna cat space calaamadeeni kadibna space Somali
technology solution ayaan rabnaa inaan qorno. Space baa u dhexeeya ma shaqayn doono. Linux sidan ma akhrido. Marka waa inaan hyphen u dhaxaysiino hadduu magacu dheer yahay. Magac dheer haddaan isticmaalano waxaan u baahannahay inaan u dhaxaysiino waxa loo yaqaano hyphen amba underscore si magac dheer oo isku xidhan uu noqdo. So hadda magacii waan sameynay. Saa u jeedin Somali hyphen technology hyphen solution ayaan qornay. Inay isku xigaan. So terminalkeeni ayaan ku noqonay inagoo isticmaalnay control plus D. waxaan iska clean garaynay faylalkii markii hore meesha yaalay ayaan nidhi clean. waxaan ku qornay clear oo ka dhigan tahay iga masax amba iga xaaq faylalka qoraaladii hore aanay rabin. qoraaladaas ayaan meesha ka tuurnay. kadibna waxaan joognaa meesheenii terminal. waxaan baranaa command very important oo loo yaqaano sudo. Sudo wuxuu ku siinayaa privilege amba awood inaad wax bedeli karto sida administrator oo kale ayuu kaa dhigayaa. Okay, so halkan waxaan ku qorayaa sida loo sameeyo directory. macnaha sideed folder amba directory aad u sameyn lahayd in Linux adiga oo jooga terminalka. Okay, haddii graphic interface ay isticmaalisid right click ayaad sameynaysaa kadibna folderkii waad sameyn kartaa. laakiin adigoo jooga terminal sideed u sameyn lahayd marka kaas ayaan ka hadlanaa. sudo ayaad ku qoraysaa macnaha privilege iyo wuxuu siinaya administrator awoodiisu siinaya. so mkdr baad ku qoraysaa. somts ayaan ka dhigay folderka magaciisa. kadibna waxaad taabanaysaa enter. wuxuu ku weydiinayaa password. ninkan folderka sameynayaa privilege awood iyo fasax ma u leeyahay permissionkiisu intuu leeyahay. so only administrator unbaa sameyn karaa. passwordkaygii ayaan gelinayaa meesha. passwordkii markaan gelinay waxaad ujeediyay folderkii inuu samaysmay somts.com oo meesha yaalla aad ujeedin. okay, sidaas ayaa loo sameeyaa sudo space mkdr kadibna folder nameka aad rabti inaad samaysid saas ayaa u sameynaysaa. su-aal kale ayaa waxay leedahay sidee loo sameeyaa faylal kala duwan. okay, amba too many files or multiple files in the same time. faylal kala duwan faylal badan ayaad hal mar wada sameyn kartaa. taasi waxay ku tusaysaa efficientka iyo degdega uu leeyahay command line interface-ku amba CLI marka la isticmaalayo in la isticmaalayn waxa loo yaqaano desktop amba graphic user interface marka la isticmaalayn amba GUI waxa loo yaqaano. sudo ayaad ku qoraysaa oo ina siinaysaa privilege-kii kadibna mkdr ayaad ku qoraysaa space ayaad baxasaa kadibna waxaad sameynaysaa folder namekii amba directory namekii ayaad sameynaysaa magacii 1 2 3 4 space waad u dhaxaysiinaysaa. intuba way samaysmayaan markaas. balan fiirina markaasi saan u sameyno. waxaan nidhi Somali 1 ayaan folderka hore u bixinay. folderka labaadna waxaan u bixinaynaa Somali 2 space baan baxanaa. space waa very important. Somali 3 saddex folder oo isku xiga ayaan sameynay kadibna enter ayaan taabanay.
waad u jeediin Somali 1 iyo Somali 2 iyo Somali 3. Okay, sidaas ayaa loo sameeyaa multiple folders amba foldero badan in the same time. taasina muhiimadda uu leeyahay waxa loo yaqaano CLI amba command line interface. su-aasha kale waxay tahay sidee loo bedelaa locationka fileka. so file baan meel ka qaadanaa oo rabnaa meel kale inaan geyno. command baa la isticmaalaa isagana. kaasi ayaan baranaa isagana. command ayaan meel ka qaadanaa oo meel kale ayaan rabnaa inaan geyno. bal taasina aan fiirino. waxaad ku qoraysaa commandkii ayaan ku qoranaa, laakiin waa inaan isticmaalno sudo waxaan leenahay mkdir space ayaan baxanaa. calaamadaasi ayaan doorananaa slash kadibna fileka magaciisa kadibna waxaan doonanaa destinationka oo directory kale loo geeyo ayaan barananaa. command ayaan isticmaalnaa rm kadibna filekii magaciisii ayaan dooranaa. rm saan la soconay folderka waa marka la rabo in la delete garayo. okay, si fiican aan inoo tuso markaad rabtid faylal inaad iska delete garaysid. remove dr iga remove garay wayaan r dhaydu rmd Somali 1 Somali 2 Somali 3 saddexdaaba iga tuur oo marka aad delete garanaysid amba aad masaxasid folders aad hore u create garaysay oonad rabin hadda inaad isticmaashid. okay, move ayaan isticmaalanaa. mv horena waan soo aragnay ahayd qaybihii horaan kusoo aragnay isla casharkan. kadibna waxaan ku qoranaa commandkaas ayaan isticmaalanaa si aan u socodsiino. waxaan leenahay move Somali fileka Somali oo yahay magaciisu waxaad u bedeshaa magac kale. so fileka aad rabtid magaciisa ayaad magac kale u bedeli kartaa. so waxaan leenahay Somali to Somali u bedel. fileka Somali la idhaa si fiican u fiiriya. Soomaaliya ayaan ka dhignay markii hore Somali ayuu ahaa. okay, haddaan mar labaad hubino oon ini tuso oon idhaahdo Soomaaliya haddana waxaad ka dhigtaa Somali. bal fiiriya siduu isku bedelo fileku. fileka saas ayaad u bedeli kartaa isaga rename. so magacii wuu isbedelay. waa very quick, waa dhaqso badan yahay isla markiina waan bedelnay. qaybta waxaan ku baranaa command man loo yaqaano siduu u shaqeeyo iyo qaybta qabto. man man haddaad ku qortid wuxuu ku leeyahay question mark. waa manual amba waa buuggii la socday Linux. so sudo man ayaan horeysiinanaa kadibna waxaan raacinaa sudo. commandka sudo loo yaqaano hanweyneyo si aad si fiican u aragtiin. wuxuu kuu macnaynayaa commandka sudo waxa loo isticmaalo iyo qaabku u shaqeeyo. okay,
so wuxuu ku siinaya information. haddaad rabtid inaad ka baxdid halkan q ayaad taabanaysaa keyboardka oo amba qa af soomaali ahaan, kadibna wuxuu kugu celinayaa terminalkaagii. clear ayaad ku qoraysaa, faylalka ayaad iska clear garanaysaa, kadibna terminalkaagii oo clean ah ayaa kusoo baxaya. waxaan tijaabinaynaa command kale ayaan tijaabinaa inagoo man help isticmaalana. man waa sida help oo kale, information ayuu ku siinayaa. man mv ayaan isticmaalnay. mv move file marka la move gareynayo amba rename lagu sameynayo, labadaba oo loo isticmaalaa. so wuxuu leeyahay versionna amba sub information ayuu sii leeyahay. so b minus b f waxaasuu leeyahay, macnaheega halkaas ayuu kugu sheegayaa. haddii aan rabno inaan ku noqono qgi aan taabananaa. command kale ayaan rabnaa inaan eegno. man ayaad ku qoraysaa, rmd ayaan ku qornay. wuu ku macnanaya waa remove empty entryga ayuu clean ka dhigay amba kaa delete garaynaya. so waa command wax kuu macnaynaya. man faa'iidadaasuu leeyahay, wuxuu ku macnaynayaa filekani muxuu yahay iyo muxuu qabtaa. okay, terminalkeeni ayaan ku noqonay. command kale ayaan rabnaa inaan fiirino. terminalka marka lagu noqdo, terminalku waa meeshii wax laga hubinay. so history haddaan ku qorno, commandka leedahay history wuxuu ku tusayaa kamaanadii aan gelinay oo dhan ayuu kuusoo bilaabaya. so saad u jeediin wixii alla wixii aan ku qornay terminalka iyadoo arkaysaa one by one. okay, clear baan odhananaa. man history baan leenahay, bal historyda iyada noo macnee. history wuxuu ku leeyahay, history waa sida library oo kale, macnaa informationkii u dambeeyey ayay ku tusaysaa. okay, so commandka history wuxuu ku tusayaa kamaanadii aad ku gashay dhammaantood. okay, sometimes linux history waa inaad weedha aad dhamaystirtid. clear haddii aad ku qortid, clear commands waxuu kaa delete gareynayaa wax alla wixii faylal meesha yaalla. so history haddaan ku qorna iminka, commandkii u dambeeyey history ayaad u jeedid, xagga ugu dambeysa ayuu dhigay kolba commandkii u dambeysay. okay, so haddaan iska gelina iminka wax qaldan, command qaldan haddaan iska gelin meesha, waxaan gelinayaa command ayaan iska gelinaya xaggan, amba command cusub ayaan ku qoraya af soomaali ahaan. la soco markaa waxa dhaca. inta baan odhanaya, haddaan markaa history ku qoro wuxuu tusayaa commandkii ugu dambeeyey aan ku qoray. waxaan gelinayaa command cusub, la soco kan amba la soco ayaan uga jeeda halkaas, history clear. okay, commandkaasina waa very important oo waxaa lagu ogaadaa history commandka. history command markaa waxyaalo badan ayuu faa'iideeyaa, sidaa darteed ayuu u yahay mid important ah. akhyaarta dhammaantiin waxaan ilaahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan inaga codsanayaa inaad youtube channelkeena aad igu caawisiin, inaad taabatiin subscribe oo sii faafisiin, like-ka iyo commentka iyo subscribe-ka iyo sharingka halka iloobina. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
waan ku faraxsanahay sida aad noola socotiin channelkayaga Somali Technology Solution. And like iyo subscribe waxay ka caawinaysaa channelku inuu sii koro oo dad badan ay sii ogaadaan. marka si muuqaalkan dad kale ay u sii daawadaan, sii gudbi amba la wadaag asxaabtaada kugu xidhan meel kasta oo ay dunida ka joogaan. share-kana nala wadaag, subscribe-kana haddaad ku cusub tahay channelka ha ka ilaawin si aad u heshid casharadii ugu dambeeyay. waxaan kaloon kaa codsanaynaa inaad comment iyo wixii aragti aad kusoo qortid comment-ka. haddii su-aaliya aad qabtiin aad nagala soo xidhiin Somali Technology Solution. aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullah.